Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa walaalkiin Rashiid. Waxaan rabaa inaan xagga nigula wadaago ama sidii noo caadada ahaydba inaan barnaamij yar oo faa'iido leh xaggan nigula wadaago. Intaanan barnaamijkayga hore u sii gelin, waxaan ogeysiinayaa haddii aan nahay bahda Sam Channel inaan barnaamijyo badan oo faa'iido u leh dadka inaan channelkan uga soo gudbin doono insha Allah. oo dhinac walba leh, dhinaca ha u badnaada dhinaca ziraacada iyo beeraha iyo aqoonteeda ha u badnaatee iyo dhiirigelinba. Barnaamijyo badan ayaan rabnaa inaan xaggan nigula wadaagno si aan u noqdo channelkana channel wixii aqoon lagu kala weydaarsan karo oo u noqdana channelkan channel inagu ay leedihiin oo dadka ay u leeyahay u noqdo ayaan rabnaa inaan xaggan nigula wadaagi doonaa insha Allah. dee taasina waxaa iga ogeysiis buu ahaa oo taabani wargelinaya ahayd. haddana barnaamijkeennii baan hore iskaga galaynaa. maanta waxaan rabaa geedka yeesuunka inaan ka hadlo. oo geedkan yeesuunku afka qalaad waxaa lagu yidhaahaa Banalo Anisa. yeesuunka waxaan rabaa inaan u kala qaado laba qaybood. qaybta u horeysana inaan kaga hadlo tusaale guud inaan geedka ka bixiyo, qaybta labaadna faa'iidadiisa. haddaan u imaado qaybta koowaad aan rabo geedka inaan faa'iidadiisa kaga hadlo. geedka yeesuunku waa geed aad u weyn, geed weyn maaha, laakiinse waa geedad yaryar. dhererkiisu wuxuu yahay 30-40 centimeter ayuu yahay, ayaa lagu qiyaasaa. xilligaa waa geed aad u yar. wuxuu dhalaa ubax cadaan ah ayuu u badan yahay, inkastoo huruud iyo kalaro kale la helo, laakiinse cadaanku aad ugu badan yahay. midhuu leeyahay, midhihiisaasi waa midho cagaar ah ama huruud ah oo midhahana uu dhalaa. geedkan dowladaha lagu oran karo geed walba ama geedaha marka la qiimeynayo geedo walba meel bay ku aftirsadaan. geedkaas xaggaabuu ayuu intaas ka soo jeedaa, intaaba xagga waqtigaabay beeran jireen. xilliga dowladaha ugu horeeya waxaa ka mid ah dowladda Masar ayaa dowladaha ugu horeeya 4000 oo sano ka hor ayay beeran jireen geedkan yeesuunka. waa dowladaha ugu horeeya ka mid tahay. waxaa kaloo ku xiga dowladdan Spain, iyadna waa laga helaa oo way beeraan, iyo Mexico waa laga helaa, iyo Asiana laba dowladood iyo dowladaha laga helaa Asiana iyagana way beeraan. wadanada carabtana hadda laga yaabaaba dowladahan imika inay beeraan iyagana, laakiinse geedkan qurunde dowladda Masar baa dowladihii u horbeeran jirtay ahayd. kaasi waa tusaalihiisii guud. waxaan u kaalaynaa qaybtiisii labaad ee faa'iidada iyo tayadu dadka u leeyahay. geedkan marka u horeysa waxyaalo badan baa laga waxeeyaa. 4 qaybood baan kasoo qaadanaynaa waxyaalaha laga waxeeyo geedkan. cadarada laga waxeeyaa, udgoon buu xigaa, udgoon buu leeyahay, cadarada laga waxeeyaa. waa geed cadarada qaarkood oo qaybahooda kala gedisan loo isticmaalo laga waxeeyo. ta labaad waxaa kale oo laga waxeeyaa dandankiisuna macaan baa ku jira. xilliga waxaa laga waxeeyaa kareemadan macaanka iyo keegaga iyo waxaa lagu waxeeyo dawooyinka iyo qaababka waxyaalaha lagu waxeeyaa. macmacaankaas ayaa sagna laga waxeeyaa, kaana waa laga waxeeyaa. waxaa kaloo laga waxeeyaa dawooyinkana waa laga waxeeyaa. dawooyinka ha u badnaadaan kuwa caloosha ha u badnaadeen, dawooyinkana waa laga waxeeyaa geedkan. waxaana laga dhaliyaa saliidda. geed intaa oo shay dee laga waxaynayaay waa dee faa'iidadiisu aad bay u badan tahay, iyo waxyaalo badan oo kale ayaa laga waxeeyaa oon rabin inaan xaggan nigala soo gudbiyo. maxaa yeelay waqtiga ayaan rabaa inaan ilaaliyo si ay dadkuna ay malal uga qaadin
clipkan inay malal uga qaadin. Dadka inta ugu badan way iska yar degdegsan yihiin ama waqtigiibaa yar, say dadkuna si guud ahaaneyd faa'iidadeeda hay u ogaadaan ayaan rabaa inaan usoo gaabiyo afartaa shay. Qofku markuu cabo muxuu faa'iido ka helayaa? Taas geedku intaa hore kaaga hadalnay wuxuu ahaa waxyaalaha laga waxeeyo shaaha. Geedkan yeesuunku wuxuu nagu soo gaadhaa cabitaankiisu sida shaaha nagu soo gaadha, sida shaaha loo cabaa sagna loo cabaa, oo waa la fixiyaa oo sonkor adigu wixii sidii shaaha loo kariyaa oo saa shaaha loo cabaa. Geedkan qofka hadduu cabo muxuu faa'iido u leeyahay? Wuxuu faa'iido u leeyahay qofka hadduu cabo calooshiisa faa'iidooyinka waxaa ka mid ah calool xanuunka, qabsinada, xididada caloosha oo dhan hadday calooshiisu adag tahay, waxaa oo dhan geedkan dawo ka yahay oo uu wala furaa, oo xididada oo dhan ayuu furayaa oo dawo u yahay. 2, wuxuu kaloo leeyahay cuntadu dadka u furaa. Dadku hadday cunto xumi hadday kugu dhacdo wuxuu kuu furayaa cuntada ayna uu kuu furaya oo faa'iidooyinkuu leeyahay ayuu ka mid yahay. Wuxuu kaloo uu faa'iido u leeyahay haweenka u leeyahay. Dumarka markay ciyaalka naaska nuujinayaan, caano badan buu ilmaha yar ka helaa hooyadii. Sidaa daraaddeed xilligaas dee dumarkaana sidaa ugu fiican yahay. Waxay dee hooyadu cunto unbuu ilmuhuna kasii nuugaa xilligaa dee faa'iido inta. Afraada xigta wuxuu dawo u yahay, balqankana dawo u yahay. Qofku markuu hargab ku dhaco ama uu duriyo, waxaa u fiican inuu yeesuunkan isticmaalo ayaa u fiican. Laabta oo dhan ayuu furaa oo faa'iidadaas buu u leeyahay. Maadaama geedkani faa'iidada inta lagu xambaarsan yahay, waxaa fiican inaan isticmaalno oon isku dayno inaan iibsano oon cabno si faa'iidadiisa aan uga helno. Fiidiyowga yar ee hadda la sii wadaaga asxaabtiin ama walaalihiin ama faamiyaashiin la sii wadaaga si ay dadku wixii faa'iido ah aan isku gaarsiino. Wixii dee heesta ama oo dhan aniga isgaarsiinay, waxaa khayrkana inaan isgaarsiino ayaa fiican. Hana hiloobina subscribe-ka iyo sharing-ka iyo comment-ka iyo like-na hiloobina, maxaa yeelay anaga dhiirigelin bay noo tahay. Taasina maaha amar waa codsi. Waxaan iga tegayaa ismaqal dambe. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi
afka qalaad waxaa lagu yidhaahaa p banalo anisa